halkaasi aad weli naga dhagaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhagaystayaal meel kastoo aad joogtaan. guud ahaanba dalalka dunida ayaa shalayto waxaa si weyn looga dabaaldegay maalinta caalamiga ee haweenka ee 8 Maarso iyadoo loo dabaaldegayo guulaha ay dumarku ka gaareen dhinacyada ganacsiga, siyaasadda iyo waxbarashada. meelaha ay maalintani markii ugu horeysay haweenka Soomaaliyeed ay ka xuseen munaasabadaasi ayaa waxaa ka mid ah magaalada Columbus, Ohio ee dalkan Mareykanka. xaflad halkaasi ka dhacday ayaan ka walaystay Khadra Mohamed oo ah madaxa xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee hawshaasi qaabilsan soo qabanqaabiyay kulankaasi. xafladaas waxaan ku qabanay xarunta dawladda Ohio ee magaalada Columbus. bal iga sheekay xafladaasi ciddii ka soo qayb gashay, haddii ay jireen dad aad ku martiqaadeen ee xafladda yimid. Khadra, xafladda waxay ahayd xaflad dad badan ay ka soo qayb galeen. xafladda waxaa hogaaminayay ururka Center for Somali Women's Advancement ama xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed. waxaan ku casuunay oo isugu yeernay haween kala duwan oo jinsiyado kala duwan wata oo haweenka Soomaalidu ay ugu horeeyaan oo ayaguna noocyada kala duwan oo bulshada ah. waxaa kale oo ka soo qayb galay oo aan ku casuunay meesha dabaaldegaas madax ka tirsan gobolka Ohio oo intooda badan haween ahaayeen. waxaa noo timid gabar xukunta aqalka golaha Ohio dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo la yiraahdo Tracy Maxwell Head, gabar kale oo ah state senator ama xildhibaan gobolkan Ohio ka tirsan oo la yiraahdo Charlotte Tafaris, gabar kale oo ayaduna maalin dhaweyto u ordaysay jagada baarlamaanka guud ee Mareykanka oo ayadana la yiraahdo Councilwoman Priscilla Tyson iyo dad kale oo aad u badan. Khadra Mohamed, intaasoo dumara markaad halkaas isugu timaadeen idinka iyo dumarkii kale ee casuunteen, bal iiga sheekay jawga meesha siduu ahaa iyo waxyaabaha halkaasi aad ku soo bandhigteen. wallaahi Ibrahim Dandurayo meeshaas aad ay qurux badneed. waxaan soo xasuusanay annaga Soomaaliya waxaan naqaanay 8 Maarso maalin weyn ay ahayd. maana arkinin weligeen gobolkan dad kaga dabaaldega ama noogu yeera. waxaa laga yaabaa ayagoo meel ku qoran inay aragtay 8 Maarso ay ahayd, laakiin weyga annaga aan ama habkii annaga aan ku soo kornay waxay ahayd in maalintaas la weyneeyo oo haweenka ay dabaaldegaan oo meel walba laga sheego oo haweenka waxqabadkooda la aqoonsado. sidii ayay ahayd. waxaanse aad ugu faraxsanahay inay markii ugu horeysay oo lagu dhigo xarunta guriga ummadda oo Ohio ama ay dad Statehouse u yaqaaniin. jawiga aad u qurux badnaa. cunto Soomaali ayaan geynay. aad iyo aad buu jawiga u faraxsanaa. dad badanna waxay nagu dhaheen maalintan waa soo xasuusisay. waxaan geynay bariis, waxaan geynay hilib, waxaan geynay waxyaalahaas kala duwan oo ka mid yihiin waxaan geynay canjeelo, waxyaalihii cuntadeennii annaga maaragtay dhaqan ahaan aan u lahayn oo aad u macaano oo dadka dhanna ay jeclaadeen. marka dadkii aad meesha ku casuunteen cuntada markaad hor dhigteen ma ka dareenteen inay faraha iska qaniineen? aad iyo aad uga dareenay Ibrahim. waxaan dhihi karaa horta qayb dabaaldegi ka mid ay ahayd aan dadkaasna oo communitygaas ama bulshada Mareykanka ah ama dadka sideenoo kale ajnabiga ah oo wadanka ku nool waxaan tusayna annaga waxa dhaqanka aan kasoo jeedno sida uu qani u yahay. cuntadeennana waa waxyaalaha aan ku faano. dee waa ogtahay Soomaali waxyaalaha ugu badanoo ay ku faanto waa deeqsinimadana cuntada loo waaye. Khadra Mohamed, waxaan maqlay in haweenkii Soomaalida ee halkaas ka soo qayb galay qaarkood shahaado sharafyo lagu guddoonsiiyey. marka maxay ahaayeen shahaado sharafyadaasi la guddoonsiiyey, maxay ku muteysteen? gabdhahaas waxay ku muteysteen shahaado sharafyadaas. waa gabdho Soomaaliyeed oo runtii halgamayaal ku ah adeega bulshada ee magaaladan Columbus, Ohio oo dadka Soomaalida ah wax badan u qabteen, waqti badan oo geliyeen. qaar badan ayagaba hooyooyin ah oo ilmo haystaan oo nolosha wadanka ay adag tahay oo shaqeeyaan haddana ay bulshada inteeda kala caawinayeen. waxay ahaayeen gabdho aqoonyahan ah oo dadkoodana uga faa'iideynayay aqoontooda, runtii waqtigooda gelinayay. aad ayaa adduunka oo dhan looga xusay maalinta 8 Maarso waa maalinta haweenweynaha adduunka. idinkana xuskaasi ayuu ahaa kii aad dhigteen. marka maxaad gobolada kale ee Mareykanka ee Soomaalidu ay joogto aad u soo jeedin lahayd?
gobolada kale oo maraykanka oo soomaalida ay ku badan tahay sida gobolka Minnesota gobolka Seattle ama gobolka Washington oo magaalada Seattle ay Soomaali badan degan tahay Canada oo nala ah waqooyi America ama xataa Soomaalida ku nool qaybaha kala duwan oo Yurub waxaan soo jeedin lahaa haweenka Soomaaliyeed inay xafladaas basaan sababta koowaad inay tahay xafladaas fasideeda oo ay soo dhexgalayso dhaqankeeni hidaheeni cuntadeeni labiskeeni qaabkii fiicnaa oo u dabaaldegi jirnay anagoo Soomaali weyn ah oo isjecel inay soo celinayso oo dadka markay isla dabaaldegaan oo waxyaalihii wanaagooda ahaa ay xasuusanayaan waxaan dhihi lahaa way isu soo keenjiidaysaa haweenka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay hogaamin ka noqdaan dhibaatooyinka Soomaaliya ee ka socda sidii ay u baabi'i lahaayeen hadeerna qaar badan way ku jiraan mid waa midaas meeda kalena waxaan leeyahay arrinkaas waxay noo sahlaysaa ciyaalkeena halkan ku koraya bulshada yaryarka ah oo aanan garanaynin waxyaalo badan oo aan dhaqan u lahayn ama markii aan wadankeena ku noolayn sida aan hab nololeedkeena uu ahaa ayagana waxay wax weyn u taraysaa taasi waxay ahayd Khadra Mohamed Shire madaxa xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed oo u warmaysay wariyayga Ibrahim Xasan Daandure iminkana ku soo dhawaada